gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa daafuray hirgelinta mashruuca soolarka oo laga hirgeliyay wadada isku xirta degmooyinka Shangaani, Xamarweyne iyo Xamar Jajab. Waxay wadadaas ka soo bilaabataa xaruntii madbacadda qaranka waxayna ku dhamaataa degmada weyn ee Xamar. Gudoomiyaha degmada Shangaani Aways Camuudi ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay baalayaashan laga hirgeliyay gudaha degmadaasi. mugdi badan ka jiray laamigan la dhisay oo dhismihiisiina noo dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho. alxamdulillah si nabadnu noogu dhamaaday iyo reereyn ah haddana la dhagax dhigaayo qayb kamid ah quruxdii laamiga oo soolarkii ah si habeenkii uu noqoto laamiga uu noqdo wada nadiif ah oo lagu shaqeyn karo gaadiidka iyo dadka isticmaalaya intaba. marka waa mahadsan yihiin maamulka gobolka Banaadir oo had iyo jeer nala garab taagan. Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Injineer Cumar Cali Cabdi ayaa ka warbixiyay hirgelinta mashruucani. waxaa la rabaa marka degmooyinka inay ilaaliyaan leerarkan meelo badan la geliyay wadada wadnaha kama shaqeeyo warshadahana kama shaqeeyo waxaa la furto soolaradii waxaa la rabaa gudoomiyaasha degmooyinka la fara in ay ilaaliyaan leerarka dadka furahayna waxa loo sheegaa waa meeshii hooyada ay mari lahayd walaalka oo mari lahaa dadka qaraabada tiini adigaba aan mari lahayd waxay ku qurux badan tahay meel bilic leh leerku ka shaqeynayo quruxna ay jirto. ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa sheegay in baalayaashan soolarka cadceedda ku shaqeeya la gaarsiin doono degmooyinka Xamar Jajab iyo Xamarweyne. soolarkii ayaa maanta noo bilowday waxaa soolarkan lagu dhameystiri doonaa wadadan marta saddexda degmo ee Shangaani, Xamarweyne iyo Xamar Jajab. meesha hadda aan ka bilownay waa bilowga wadada laamiga ah ee wakaalada mooska madbacada meesha daddigista xarunta maamulka gobolka Banaadir kawaanka malayga wasaaradda garsoorka maxkamadaha xabsiga dhexe ilaa dekada ayaa soolarkan uu gaari doonaa oo inta ay gaarsiisan tahay wadada kadib waxaan u gudbi doonaa wadooyinka kale isugu jira kuwa interlog ah iyo laamiyada bulshada ku nool degmada Shangaani mas'uuliyadoodu waxay tahay lagulana xisaabtami doona maamulkooda inay xafidaan hantida malaayiinta dollar ku fadhida ee loogu keenay degmadooda haday ahaan lahayd wadada laamiga ah oo si fudud ay u ogolaan in ay noqoto wada qashin dhex yaalo ama si fudud leesiga jajabiyo oo loo burburiyo. sidoo kale soolarka inay ayadana iska xil saaraan xafiditaankiisa oo waxaan xafidaad u baahnayn ma jiraan. waxaad ogtihiin degmooyinka mid ah gobolka Banaadir imaatinkayga xafiiska aan imid ka hor in soolar la geliyay sida wadada wadnaha iyo wadada Sodonka laakiin soolaradii la gashay batariyada lagala baxay maanta ay tahay meel mugdi ah. marka maamulka gobolka Banaadir waajibaadkiisa waxa ah dhismooyinka wadooyinka iyo nalaynta wadooyinka. Cabdi Fataax Muumin 5TV Muqdisho.